degmada Agabar iyo dadka ku nool ma waxa lala rabaa inay noqdaan sida dalka macdanta qaniga ku ah haddana faqiirka ah ee Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Kongo. Isweydiintaasi waxay dad badan u furaysaa inay ka fekeraan macnaha weyn iyo sababta ka dambaysa shaqaaqadii maalintii shalay ahayd ka dhacday degmada Agabar ee gobolka Gabiley, taasi oo sababtay in si xaq darro ah loogu dilo 2 nin oo dhalinyaro ah oo magacyadoodu kala ahaayeen Cali Cabdi Jamaal iyo Yaasiin Maxamed Ciyaale, kuwaasi oo ku baxay gacanta ciidamada dawladda. Rabbi naxariistii jannaha ka waraabiyo marxuumiinta geeriyootay, dhammaan ehelkana samir iyo iimaan allaha ka siiyo. balse mushkiladda shalay ka dhacday degmada Agabar may ahayn shil amaba arrin si lama filaana ku timi. Waxay ahayd xiisad muddo dheer soo taagnayd balse aan weli loo helin xal midho dhala. laga soo bilaabo sanadkii 2018 hadalhaynta shirkadda haatan shaqaaqadani ka dhalatay waxay ahayd mid deegaanka Agabar ku soo noqnoqota. Marar badan waxa la sheegayay inay tahay shirkad macdanta baadhaysa, halka marar kalena la sheegayay inay bilowday soo saarista macdano kala duwan. qaar ka mid ah xukuumadihii kala dambeeyay ee Somaliland soo maray waxay ruqsado aan si waafiya u qeexnayn siiyeen shirkado ganacsi oo macdanta ka shaqeeya oo ay ka mid tahay shirkadda haatan buuqu ka dhashay ee loo yaqaano Jamestown Trading Company. sidoo kale xilliyo kala duwan ayay xubno ka mid ah dadka deegaanku heshiisyo la galeen waliba sanado kala dambeeyay. marka la isku soo wada duubo heshiisyada shirkadaha iyo waliba shakhsiyaadkaasi, haddiiba ay wax dheefa ka heleen ma jirto wax munaafacaad la taaban kara oo dadka deegaanka ee ku nool degmada Agabar ay ka heleen macdanta la sheegay in laga helay dhulkooda oo aanan xaqiijin karin xaddiga laga soo saaray iyo qiimo ahaan inta ay gooyeen midnaba. xiisadda arrimahaasi la xidhiidha iyo cabashooyinku waxay hayeen kuwo isa soo tarayay balse may jirin cid ka madax bannaan daneeyayaasha muranku ka dhaxeeyo oo keenay xal dani ugu jirto dadka deegaanka heshiisna lagu wada yahay. hal habeen ka hor intaanan ka soo safrin magaalada Hargeysa waxaan fiidnimadii Arbacada ee taariikhdu ahayd 25 Juun sanadka 2025 aniga iyo xubno dhalinyaro aqoon-yahan oo deegaanka Agabar ka soo jeeda aanu tagnay magaalada Gabiley, halkaasi oo aanu kula kulannay badi cuqaasha gobolka Gabiley oo uu hogaaminayo Chief Caaqil Dayib Cabdi Ciidle Amaan. kulankaasi oo ahaa mid guud oo salaan iyo duco iyo isxoguraysi ku saabsan. cuqaasha qodobadaanu ka wada hadalnay waxaa ka mid ahaa xiisadda ka taagan degmada Agabar oo qof kasta oo caqli leh u muuqatay inay xabaddu xilli kasta qarxi karto. in xal loo helo mushkiladda ka taagan degmada Agabar iyo hareeraheedu waxay u baahan tahay in lagu eego indha ka fidsan waxa maanta inoo muuqdo oo kaliya. waxay u baahan tahay in caqligu shaqeeyo oo go'aan kasta oo lagu dhaqaaqayo salka looga dhigo xaaladda dadka deegaanka Agabar gudaheeda. sidoo kale waxa looga baahan yahay hoggaanka dhaqanka, odayaasha, siyaasiyiinta, waxgaradka, ganacsatada deegaankuba in ay turxaan bixiyaan wax kasta oo kala fogeyn ku keeni kara dadka deegaanka, maadaama oo markii ugu horeysay taariikhda la arkay iyadoo maalmihii ugu dambeeyay qaarkood ay miidiyaha iskaga jawaabayaan. waxa loo baahan yahay in ay arrintan dhulka dhigaan isla markaana ay isku yimaadaan, wax kasta oo isku khilaafsan yihiin ay ku dhameeyaan wada hadal iyo safgarad. khilaaf kasta oo dibadda u soo baxa ama warbaahinta la isku adeegsadaa wuxuu foolxumo iyo niyad jab ku keenaya dadka deegaankaasi ka soo jeeda ee daafaha caalamka ku kala nool oo taariikh ahaan lagu yaqaano dad xadaarad leh, isku dulqaata, talada u kala dambeeya, isla markaana ay ka soo jeedaan dad badan oo hormooda oo taariikh weyn ku leh halgankii dhismihii qarannimada Somaliland, dib u dhiskii dalka haatana kaalin weyn ugu jira wadamo badan oo ka mid ah geeska Afrika sida Somaliland, Djibouti iyo Ethiopia. shirkad kasta oo ruqsad la siinayo iyo cid kasta oo ka shaqeynaysa macdanta laga helo gobolka Gabiley iyo guud ahaanba Somaliland waa in la waafajiyo xeerarka macdanta ee dalka, waana in dheefta ugu badan lagu celiyo deegaanada laga helo khayraadka dabiiciga ah. dunida oo dhan waxaa jira xeerar lagu maamulo khayraadka dabiiciga ah iyo waliba sida loo maareeyo khataraha ka dhalan kara goobaha macdanta amaba shidaalka laga qodo oo halis ku ah dadka, xoolaha iyo deegaankaba. goobaha macdanta iyo khayraadka dabiiciga ah laga helay ee aan sida caqliga iyo cilmigu ku jiro aan loo maareyn waxa tusaale muhiima inoogu filan dalka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Kongo oo ka mid ah wadamada saxaraha Afrika ka hooseeya. waa dal weyn oo ay ku nool yihiin in ka badan 110 milyan oo qof, waana mid ka mid ah dalalka ugu qanisan dhinaca macdanaha iyo khayraadka dabiiciga ah ee dunida.
balse sanad kasta wuxuu ka mid noqdaa 5 waddan ee dunida ugu saboolsan. Carruurta dalkaasi ee 10 jir iyo wixii ka weyni waxay ka shaqeeyaan shaqooyin adag oo ay dhibaato badani ka soo gaadho sida qodista godadka, iyaga oo qaata lacag aad u yar oo aan xataa nolol maalmeedkooda ku filnayn. Rag, dumar iyo carruur dhammaanba dadka shaqeeya ma helaan xuquuqo kala duwan oo ay ka helayaan shirkadaha ajaaniibta ah ee dalkooda u soo shaqo tegay. Shirkadaha dalkaasi ka shaqeeya 70% waa Chinese, 30% kalena waa wadamada reer galbeedka. waxaa jira shirkado wadamo kala duwan ka soo jeeda balse heshiis ku ah inay dalkaasi kheyraadkooda gurtaan, halka dadkii waddankaasi ka soo jeedayna aanay heshiis ku ahayn ee ay u kala qaybsan yihiin xukuumad aan tamar badan lahayn, jabhado hubaysan iyo kooxo abaabulan oo ka samaysma deegaanada macdanta laga qodo, iyo weliba wadamada dariska la ah oo dhammaantood si aan sharci ahayn dheef uga hela shirkadahaasi ajaaniibta ah ee macdantooda guranaya. waddankaasi ma laha cusbitaallo hagaagsan, goobo waxbarasho oo tayo leh iyo kaabayaasha aasaasiga, dadkiisana waxaa ragaadiyey colaado, jahli iyo baahi. waana mid ka mid ah dalalka ugu qanisan kheyraadka dabiiciga ah ee dunida oo dhan. haddii si sharciya loo maamuli lahaana wuxuu noqon lahaa mid ka mida dalalka dunida ugu dhaqaalaha badan. waana in waddan kasta oo dhulkiisa kheyraad laga helaa uu tusaale ku qaataa kana foojignaadaa in uu noqdo sida dalkaasi oo kale. deegaanka agabar, caqligu ha shaqeeyo, caadifada ha la damiyo, cilmina ha lagu saleeyo go'aamada dambe ee la qaadanayo.